marka balwada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn qoysaskeena maanta burburiyay sababtoo dalku markuu burburay wax walba oo dad xumeeyaa la soo geliyay balwada marka la cuno ama la cabo ama la isku duro waxay maanta baaba badan u keentay qoysas badan oo dhisnaa ay baabiis balwada qofka cuna waxa baaba aqligiisa waxa baaba garashadiisa damirkiisa luma qofka balwada isticmaal waxay ka muuqataa aqligiisa iyo jirkiisa qofka balwada isticmaala ma qaadi karo mas'uuliyadda gurigiisa nafaqeynta ilmihiisa mas'uuliyadda gogashana ma gudan karo waxay keentay marka balwadii in qofkii si toos ah u baaba'o dadku mas'uul ka ahaana ay baaba'aan taasoo keentay in la isugu samri waayo laguna kala tago qiimiga waxay dhaheen ahaan weelkeedii gabtay cid kale ahaan uma noqoto macnaha qofku hadduu asagu mas'uuliyadiisii qof mas'uuliyad gurigeed gudan waayo dee gurigu u joogi maayo gurigu waa dad waxa ku nool waa hooyo waa ilmo ay dhashay ama waa haweeney kaliya hadduu xaqi gogashana gudan waayo xaqi nafaqadana gudan waayo xaqi waxaan ku yiraahdaa isha mas'uuliyadda oo gurigana uu gudan waayo qofku tiir ma meesha ka baxay ma joogayo burbur baa imaanaya balwada la cuno ama la cabo maanta la isticmaalo waxaa ka mid ah qaadka sigaarka xashiishka shiishada waxa la yiraahdo oo iyadana ayaantan soo korortay waxyaabahaas ugu culus qofku markuu waxyaabaha isticmaalo dhaqaalihii soo gali lahaana waxaas ku baxaan ilmihii iyo gurigiina waa loobaya maskaxdiisa kuma jiraan wixii soo galan waxaas ku iibsanaya maanta hadaa aragto qof qaraabo kula ah oo ama ku yimid ama si u dhiban oo balwad leh hadii maanta al contribution loo sameeyo oo la isugu dolay ilmihii la aad intuu kugu yimaado problem ama shaa ama qoyskiya waxa xaqiiqa boqolkiiba boqol ilmaha gaarsiinaya waxa uu dhibto meel la fariisanaya qashinkaas ku gadanaya halkaas la jooga ilmihiina yeelkood waxay keentay marka taasuna burbur badan balwadan la cabo ama la cuno waxa ugu daran qaadka qofka waqtigan waa ka lumiya maankiisana waa dooriya aqligana waa ka lumiya sharafti iyo qiimo lahaana waa baabi'iya waxa tusaale noogu filan fudud gabadha mid ugu akhlaaq badan oo ugu sharaf badan oo ugu maxaanku ixtiraam badan maalintii ay qaad iibiso oo ay qaad u daruuf kasta ku qasabtay kama soo wareegaysa hal bil inta arkayso iyadoo nin halka ku dhagan oo leh lacagtay si xalamiyaad maaragtay igula tumatay waa wax bil kadib ayaa qofka dhan characterkiisa ama dabeecadiisa ku bedelmaysa hadalkiisa bedelmaya dhaqankiisa bedelmaya xurmadii shadka dhan baa ka tagay qofku wuxuu noqonayaa qof aan waxba ka xishoon qofka cuna iska day qofka gada ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo waa isla ogtiin maanta markii ay la kala qabanayo dad halka isku dhagan oo la chat lacagtiisa waxay ku hadlayaan dhamaanteen ogna wiilkuna gabadha wuxuu lacagtiisa hadda iyadu qaad cunto wuxuu miyaan kugula tunto gabadhuna intii halka nin ku dhigtay la miyad kugula tunto lacagtiisa shalay waxay ahayd gabar wanaagsan gabar sharaf leh gabar gurigeeda joogta marka qofkan ba cunin oo ka ganacsada saa u hadlaya qofkii cunay oo maankiisii maskaxiisa ku quudiyay waxa caadiga ka bedelay jirkiisii oo sidii ilaahay u abuuro caadiga la dagaalamaya oo qeyral caadi dalbaya wax wanaaga laga sugaya waa ma magaciisa ba qaad la dhahaa waa qaad marka barnaamijkan balwada ah ama sigaarka ha noqdo ama khamriga ha noqdo ama qaadka ha noqdo dhamaan waa maanta waa masiibo weyn oo maanta reerahanagii baabi'isay khamriga waxa la ogaaday inuu qaadku ka xun yahay oo qaadku boqolkiiba boqol ka xun yahay dadka khamriga caba marka la qiimeeyay iyo dadka qaadka cuna waxa aad u liitay dadka qaadka cuna oo reerahooda dayacay oo burburay oo inta badan dadka khamriga caba ha soo dhacdaa haduu rabe waxa laga yaabaa inuu gurigiisii reerkiisa inta badan sida midkaan u dayacayo uusan u dayacin laakiin midkaan waqtigiina waa dayacay qaadka cuna caafimaadkiisina waa dayacay gurigiisii mas'uuliyadiisina waa dayacay marka qaadka iyo qashinka la cunayo maanta reero badan buu naga baabi'iyay waxaan hubaa
in maanta qoysas fara badan oo noo dhisnaa markii balwadda dhex galeen ay ka naga baaba'een si fudud iyadoo la ogyahay inaan qofka qaadka cunaa uusan mas'uuliyad guri iyo mid naftiisa midna waxba ugu filay. marka waxaan rabaa gabdhaha raba inay guursadaan oo maanta dookhooda xulanaya inay ka digtoonaadaan qof balwad leh inay guursadaan. qof balwad leh ama qaad cuna ama xashiish caba ama khamri caba ama qurun kalaba u qarsoon yihiin waa inay ka digtoonaataan. لأنه haddaad ku gasho qof noocaasa maanta aad isu dhiibto labay mid noqonaysaa inuu ku baro qashinkii iyo qurunkii waa asaga uu watay oo adiga asagu aad isku nooc noqotaan oo isku bah noqotaan iyo inaad inta u adkaysan weydo oo u dulqaadan weydo aad ka cararto aad ku garoobayso ayay noqonaysaa. ilmihii iyo caafimaadka ayna ku dayacmaan. marka waa idinkaga digayaa balwaddaas la cabo ama la cuno rag iyo dumar waxay rabaan isticmaalaane qofka kaleeto markuu guursado ka hor intuusan guursan ka hor waa in la iska hubiyaa balwad la'aan inay jirto. waxaad ogtiin maanta iska dhaaf qoys inaan ku dhisannee hay-adaha shaqada qorta oo maanta Soomaaliya ka dhisan qofka waxyaabaha interviewga looga qaaday waxaa ka mid ah balwaddiis in la weydiiyo maxaa balwad leedahay leey qor da sigaar cabto da jaad cunto haddaan balwaana qorta waxay difaac uga jiraan inay qaataan qof balwad leh sababta qof balwad leh shaqada laga rabay qaban maayo waqtiga laga rabana shaqada imaan maayo waa habsad ama hadal ahaan iyo muuqaal ahaan buxun yahay hadduu waqtiga xilaaliyo oo qof waqtiga ilaalinaya xataa oo balwadiisa xakameyn kara nafsan ahaan buu caafimaad qabin oo frustration iyo buuq iyo dad dhaqan xumo iyo dabeecad xumo iyo jiro wax daran baa daba socda oo balwadaas u keentay. dadka qaadka cunaa uma suuragal aha inay nolol deganaansho ku noolaadaan ama balwadaba cuna ama hal cab ama hal cab. caafimaadkoodii iyo dhaqaalahoodana wax ku baabaya qaadka qoysna mas'uul kama noqon karaan. waa in arrinta laga digtoonaado.